أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته واتشانل كيني وآمنة بدران أونلاين شانل واسكسو اللابنا هدنا مانتا وحان وضاه وني وضاه وكنا السنينا شيكا 2018 كي كدعدي ودنكا مريكنكا sheekadaasoo dhacday taariikhda markay ahayd August 13 2018 sheekada waxay qusaysaa gabar ku magac baxday oo magaceeda runta ah la dhaho Shanaan ninkeedana waxaa la dhahaa Christopher marka waa family reer Shanaan reer Watts la dhahaa iyada ninkeeda waxaa la dhahaa Christopher Watts iyadana waxaa la dhahaa Shanaan Watts waxay dhalatay taariikhda markay ahayd 10 January 1984 ninkeeda Chrisna wuxuu dhashay taariikhda markay ahayd 16th May 1985 Shanaan iyo Christopher waxay isguursadeen 2010kii North Carolina waxay isbarteen 2010kii aroosna waxay galeen November taariikh 3 2012kii arooskay galeen way ka baxeen Shanaan iyo Christopher waxay aadeen meesha la dhahaa Frederick Colorado meeshii way iska jeclaadeen honeymoon markay u aadeen waxay degeen guri 5 bedroom house ay degeen meeshii iska jeclaadeen marka dambe ilaahay wuxuu ku irsaaqay December 17 2013 waxay dhaleen Shanaan iyo Christopher gabar la dhaho Bella wax yar kadib July 17 2015 hadana gabar kale waxay dhaleen la dhahaa Celeste ama Cece loo soo gaabiyay magaceeda marka la soo gaabiyay Cece la dhihi jiray marka iyada ah oo gabadhan taariikhdeeda waxay soo dhamaan doontaa August 13 2018 waxay caloosha ku waday wiil oo u bixin rabeen Nico wiilkaas oo dhalan doonin oo caloosheeda ku dhiman doono iyada lala aasi doono marka Shanaan waqti dhimanaysay waxay caloosha ku waday uur 15 week ah marka u soo noqon Shanaan iyo taariikhdeedii gabadhan Shanaan Watts gabar social media aad caan uga ahayd caanimadeedana waxa way nolosheeda soo gelin jirtay gurigeeda ilmaheeda ninkeeda mar walba waxa la arki jiray iyadii ninkeeda isku faraxsan mar walba waxa la arki jiray iyadii ilmaheeda oo ciyaara wax walba meeshay soo gelin jirtay isla markaas Shanaan waxay lahayd gabar ay wax walba u sheegato maalin walba ay text gareyso wax walba oo nolosheeda qaaska ah oo iyadii ninkeeda hata ay kala sheekeysan jirtay oo la dhaho Nicole isla mar ahaantan ninkeedana gadaalan ka ogaan doonaa wuxuu xiriir la yeelan doonaa gabar la dhahaa Nicole Kessinger tan ma aha laakiin laba Nicole sheekada ku jirto tuna ninkeeda saaxiib la noqon doontaa tuna familkan bay saaxiib la tahay waa hagaag marka intaas waxaa noogu eg Shanaan iyo Christopher barashadoodii caruurtoodii ay dhaleen iyo noloshoodii marka maalin maalmaha kamid ah oo August 2018 taariikh 13 waxaa la waayay gabadha la dhaha Shanaan iyo labadeeda caruurba waa la waayay xagee loo waayay Allahu a'lam anaga ma garanayno sheekada ayaan ku dhex garan doonaa maalintaas maalmihii ka horeeyay maalintaas waa maalin Isniin ah Saturday and Sunday Axad iyo Sabtigi Shanaan magaalada way ka maqneed waxay ku maqneed trip yar oo gaaban horta gabadhan waa idinka soo kala hilmaamay waxay suubisaa online ayay wax ku gadaa online markay wax ku gada waxay aadaa meetingyo iyo shirar bay ka qayb gashaa ilaa waxay gadaa company oo waxay u shaqeynaysay ayadoo gurigeeda joogto ee shaqadeeda sameynaysa laakiin marmarka qaar waa la wacaa waa loo yeeraa shirar ay galaan marmarka qaar way baxaan business koodaas waxay u aadaan tribyo iyo safar gaaban oo 2 habeen 3 habeen ay magaalooyinka kale u aadaan marka weekendkaas waxay ku maqneed magaalada la dhaha Arizona ayay business trip u aaday waa weekendkii Isniintana way imaan doontaa way soo noqon doontaa habeennimadii 2 habeenimo
2 am ay soo noqon doontaa 2 am kii markay soo laabanaysay waxaa keentay oo garoonka ka soo qaaday saaxiibteed Nicole garoonka ka soo qaaday oo guriga keentay waliba kaamerada gurigooda oo banaanka waxay tusaysaa hallwayga saan markay uga soo galaysay Nicole oo soo galayso Shanaan oo soo galayso oo la socoto gaarigii ku socoto saaxiibteed Nicole meeshii ka laabatay ayadana gurigeeday soo gashay gurigeeda markay soo gashay ay habeenimada imaaday labadaas maalmood ay maqneed caruurtii waxaa sii hayay Christopher Watts ninkeedii sii hayay maalmahaas maalinta ka horeysay August bishii ka horeysay June iyo July labada bilood ka horeeyeen Shanaan waxay dareentay inuu ninkeeda caadi ahayn waxay u sheegtay inay uur leedahay maalintii fast uurka isku soo aragtay taariikh 11 June ayay ninkeeda iyadoo faraxsan u sheegtay markaas wuxuu iska dhigay nin aad iyo aad uurka ugu farxay laakiin kuma u farxin asxaabay waxaad ogaatiin bini aadankan fiidiyoyada ay soo record gareeyaan labada isqabto markay ay iskula jiraan social media amaba ay waxyaalo soo dhigaan inta badan ma dhihi karna dadkan waa dad faraxsan Allahu a'lam siiba gaalada ana dadka muslimiinta kama hadlaayay gaaladan markaad aragto ama dadka caanka ama celebrities ka sida loo yaqaan dad waxaad arkaysaa nin iyo naagtiisa oo maalmahan dhan isku faraxsanaa oo maalmahan dhan fiidiyoyo soo dhigay next day waxaad maqli ninkii aa naagta dilay ama naagti baa ninka soo siiso oo saan yeeshay ama divorce dhacaad maqli kartaa marka inta badan waxyaalaha ay dadkan soo dhigaan waa dhoolatus gabadhan marka waxay isku dayaysaana lagu dhahay intii tabarteeda intay guurkeeda ka shaqaysiiso ilaa 2 bilood bishan August la wayn doono 2 bilood oo ka horeysay oo dhan maxaana la dhahay gabadhan waxay xooga saaraysay sidii ay ku soo celin lahayd farxadii gurigeeda ilaa mar walba waxay text message u soo diri jirtay saaxiibteed Nicole messageyaas oo laga arkay telefoonkeeda mar walba Nicole ay la kaashan jirtay ay dhigi jirtay walaalay ninkii baryahan sidaan u arkay ilaa juuntaas dhexdeeda iyo July samarkii ay waxay aaday gurigooda meesha ay ku dhalatay hooyadeed iyo aabaheed ay aaday dalxiis ahaan ugu yara baxeen ayadii ilmaheedii inta ay meesha ku maqnaayeen ma uu soo text gareynaynin uma soo celinaynin mar iyo dhif marka ay ka soo noqotay tripki oo imaadayna nin naagtiisi ay ka maqneed oo xiise u qabay ahaan xiisii ma u tusin gabadha saaxiibteeda ay u soo bandhigtay waxay tiri walaalay aniga saana ay haysato kana ay haysto ninkii waa saan wajigiisa waa saan farxad male kan male hatta markay u sheegaysay uurkii inay uur leedahay way soo record gareysay recording video ay soo gelisay waxaa la arkaa meesha ka muuqda asagoo faraxsan oo qoslaaya ayaa meesha ka muuqata marka maalmahaas gabadhan soo noqonaysa ilmaha asagaa sii hayay habeenkii way soo laabatay markay soo laabatay waaga baryay waxay lahayd inay dhakhtar la kulanto haddana isla maalinimadaas ay business meeting ay ka qayb gasho shir businesskeeda ku saabsan inay ka qayb gashay ahayd labadiiba kama ay soo muuqanin markii abaaraha duurkii la joogo ayaa gabadha saaxiibteeda ahayd oo Nicole ay soo text garaysay uma ay soo celinin hay Shanaan ay ku tiri ma aaday appointmentkii ma aaday jawaab male way wacday jawaab male wax ka qabanaya malaha way soo baxday gurigii imaaday beelkii ku dhufatay jawaab male wax albaabka furay male way qarqaraacday wax furay male haddana waxay samaysay ninkii Christopher kii oo maqan bay wacday ninkan Christopher aan idin sheegay wuxuu u shaqaynayay shirkadaha shidaalka ayuu la shaqaynayay waa ogaan doonaa wax shirkadan muhiim u tahay sheekada dhexdeeda marka way wacday waxay tiri Christopher gurigaada hortiisaan taaganahay Shanaan iyo ilmaheeda guriga kama muuqdaan waa sidee Shanaan hooyadeed iyo aabaheed familkoodii haddana wacday isla markii haddana ugu dambeysay laamaha amigay wacday booliiskii oo socda iyo ninkii oo socda mid iyo mar kale imaaday waqtiga ay Nicole albaabka soo istaagaysay waxay ahayd 12 iyo 10 daqiiqo ahayd
booliiskana waxay imaadeen 7 saac iyo 40 daqiiqo kowda duhurnimo ilaa 40 daqiiqo ay u imaadeen booliiskii marka waxaa dhacday gurigii asaaj lagu qaaday gurigii baa la baaray sidii caadiga ahayd ninkii meeshuu taagnaa muruga fara badan oo fara badana ka muuqdeen markaasaa la yidhi waryaa aaway familkii labadii caruur iyo hooyadood xaamiladeed xaggee aadeen markaasuu haddaan ogaan lahaa miyaaba intaan isku soo gaari lahaa markaasuu intuu ooyey uu dhahe shanaaney haddaad imaqlahays ilmaha soo celi adigana ima walaalay waa murugsanay murugaad nagu ridee allah maxaan ka jeclaan lahaa maanta allah maxaan aad u jeclaan lahaa maanta inaan arka caruurtayda iyo hooyadood murugan caadi ahayn oo aad u fara badana ka muuqata wejigiisa Chris markaas gurigii markii la baaray ayaa waxaa la arkay telefoonkeedii oo kuraasta dhexdooda ku jiro boorsadeeda yareedoo gacanta ayadana meel saas u taalo oo waxaa ku dhex jiray furihii gaarigeeda laga dhaxelay kaasidkii caruurta ayagana meesha laga dhaxelay alaabaheedii dhan meesha laga helay faraantigeedii oo arooska isagana waxaa laga helay qaanada sariirta korkeeda booliiskii waa imaadeen la keenay baaritaana la sameeyey gurigii waa lagu kacay adiga calaa iyo kulli xaal Chris wuxuu soo istaagay oohin iyo murugo fara badan isla markii laamaha amniga way kaxeeyeen waxay dhaheen yow haddaan ku wareysano saacadihii kuugu dambeysay iyo waxaas waayuu dhahe waa la israacay meeshii buu tagay saldhigiyaa la tagay wuxuu yidhi xalay bay soo hoyatay gabadhaas safar bay ka imaaday safarka markay ka imaaday wax yar baan murmurnay wax yar markaan murunay ani waxa iigu dambeysay 11 iyo daqiiqooyin markaan shaqadayda aaday 11 iyo 15 daqiiqo anigoo guriga kasii baxaya oo shaqadayda u baxay ay iigu dambeysay markii ka bacdina markii ka bacdi intaasoo jeer ayaa waxaan isku dayay inaan soo waco telefoonka way iga qaban waysay text message yaalan u soo diray ima ay soo celinin marka gabadha saaxiibteeda hadda i soo wacday sidaasaan ku imaaday waxaa dhici doona marka Chris waxaa loo qaaday interview waa la geliyey interviewgaas markuu mara dadkan xaggey mareen xaggey kasoo muuqan doonaan insha allahu tacaala videogeena labaadan soo gelin doona kan nagu yara dheeraaday marka sidaas iyo nabadgelyo marka asxaabay hala saara subscribe-ka hala saara maxay ahayd like-ta ina share gareeya marka sheekooyin macaana waa noo soo wadaa biidnillaahi kariim haddee bahasha ha lagu nasto aan ku wada nasano aan ku wada raaxaysano idinkana dhinaciina shaqada ka soo qabta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu